Inna lillahi wa inna raajicuun. Tani waa Ramle Cabdiqaadir waxay ka mid dhalinta Soomaaliyeed iyo gaar ahaan hablaha isticmaala aaladda baraha bulshada ee TikTok. Inkastoo Ramle ay ka caanheed aaladda TikTok, haddaba gabadhan ayuunbaa lagu dilay magaalada Muqdisho, gaar ahaan suuqa Bacadweyne ee xaafadda Yakshiid. Inkastoo ehelada xaafadda iyo gabadhan ay ka soo jeeda ay la hadleen aaladaha baraha bulshada, taasoo muuqaaladeeda ay soo baahiyeen telefishinno halkaasoo howlgalay. haddaba waxaa iska soo daba dhacay warar sheegaya in gabadhan la dilay laakiinse aan iyadu istirin. sidoo kale cadeymo sheegaya ayaa in gabadha cunaha la ciijiyay iyo sidoo kale. haddaba waxaa naga codsiya haddii aad doonaysa muuqaalo iyo sidoo kale warbixino dheeraada, fadlan nagu soo biir marka hore oo ka mid noqo kumanaanka kun ee qof iyo sida joogtada u hela warbixinaha iyo barnaamijyadan halkan ku baahino. siina shargare muuqaalkan, like-na saar. like-tu waxay naga caawinaysaa in muuqaalkeenu gaadho walaasheen, ducadna ay dad badan oo Soomaaliyeed u soo duceeyaan. mahadsanid haddaa intaa samaysay. haddaba Ramle Cabdiqaadir oo ka mid ah dhalinta Soomaaliyeed iyo sida gaarka u isticmaala aaladaha baraha bulshada ee TikTok, taasoo haysata kumanaan kun oo qof oo Soomaaliyeed. haddaba Ramle ay xilli ay ku jirtay in ay soo gudbiso muuqaal ay ku baahisay baraheeda bulshada ee TikTok ayuunbay la kulantay arrinkan. sida ay sheegeen dhalinyaro halkaas joogto oo wax la duubaya ayaa sheegay in iyadu qacanteeda isku dishay. laakiinse qaar ka mid qoysaska iyo sidoo kale qaraabada halkaas ka hadlay markii la aasiyay ay warbaahintu halgashay ayaa sheegaya in aanay Ramle istirin, laakiinse ay ahayd in ay dileen dad kale oo cadow ah. haddaba ehelka lagu eedeeyay iyo sidoo kale cidda dishay Ramle Cabdiqaadir iyo ninkii lagu eedeeyay mid ka mid odayaashii halkaa ka hadlay ayaa sidoo kale ka hadlay. haddaba waxaan kuu soo gudbin doonaa waalidiintii halkan ka hadlay iyo sidoo kale warbixinta dheeraadka ah hadda sugaysaan. warbixintan waxaa si gaara u soo duubay muuqaalkan oo leh Dalsan TV. mahadsanideen ayla daawada waa kane. isla markaana la dilay nale xasan axmed xasan gabadha oo la dilay ayaydeed ayaan ahay. dilka loo geystay waxaana lagu soo jawaab Facebook la soo dhigay in cunugteyda falxumo ee waxaad ku dhimatay oo ina istishaale ugu soo maxaa la soo dhiga ha istisha muxume qof ma gadaal iska dili karto hore qofta hore iska dili kartaa laakiin gadaal ma iska dili kartaa. waa may waxaan ahay gabadha waalidkeeda oo ayaydeedaan ahay, hooyadii dhashaan waalid u ahay. gabadha gabar yar waayo wali aan qaangaar ahayn in oo social media kala dhex wareejiyo oo la yiraahdo gabadhaas ayada isdishay ayadoo TikTok iska duubaysa aad iyo aad uga xunahay. waxa qiirada nagliyay oo maanta saacadan gabadhan 24 saacadood oo banaanka u yaalo waa dadka fiiska ku raadiyay falxumada iyo ijaafada gabadhan oo la soo istaagay. gabadhan way yar tahay, gabar yar waaye, waa la dilay, gacanka aqdarana dishay, qof guriga kula noolaa dishay. mana aysan wax dhibaato iyo wax hadal iyo wax isma dhaxmarsadeen ma jiro. gabadha waa la dilay, gacanka aqdarana dishay. waxaan leenahay ehelidii ay ka baxday marxuumada Ilaahay oo naxariisto meel walba ay joogaan dadka Soomaaliyeed oo dhan ugu tacsiiyay. tan kale gabadhaas tacsiyadeeda dhibtaas oo ku dhacday si fool xun oo gabadha inta la dilay haddana la yiri maxay ahayd aniga gabadha lama dilin ayada istishay. aad baan ugu xunnahay, waa ka xunnahay, waana fool xumo, waa cambaaran. waxaas waxaan ogolnahay ama ogolaan doono maaha. hase ahaatee wax walba muhiimadda markii laga raaco gabadha meydka ah waxaan saakay ku xabaalnay gurigeedii runta ahaa oo aan geynay. waxaan ka socdaa gabadha la dilay waana Facebook iyo baraha bulshada ay TikTok meel walba loo dhigay inay is dishay macna. markaan tixraana kadibna gabadha waxaa cadaatay in ay is dilin oo la dilay oo waliba laga soo toogtay dhabarka dambe madaxa. gabadha waxaa la dhahay markaa xaafad tagnay gabadha ayada is dishay. marka dambe saldhig markaa aadnay oo CID-da waxaa noo soo baxday gabadha in soo baxeen faro cijooyin oo xoogaa la jir dilay, kadibna bistooladaas dhabarka dambe loogu soo dhuftay. ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay gabadha adeerkeed waxaana ka warbixiyay wada hadal dhex maray iyaga iyo reerka ninka dilka geystay sida la sheegay. dideedii waxaan nahay odayaashii gabadha ragga ka dhaltay, aniga adeerkeedaan ahay, gabadha adeerkeedaan ahay. waxaana la joogo odayaashii wiilka gabadha gacanta dhibka u geystay. ولهم ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. aad ay xanuun igu tahay inaan maanta halkan aan u fadhiyo geerida walaasheeda. Ilaahay ha u naxariisto, qalbigeyga aad u gubanaa. waa mid ka mid ah gabdhaha aadka ugu jeclaa
aan kala socon jiray intaan ka aqaano gabadhaas waxay ahayd gabar asturan shood badan afgaaban ma ahayn dadka tiktok aad ugu dhaxmilmay sida la sheegay waxaan hadda la hadlay qof ka mid ah qoyskeeda waxay i xaqiijiyeen in ay duubaysay muuqaal ka mid ah muuqaalada ay rabtay inay la wadaagto saaxiibadeeda kadibna shilka uu saas ku dhacay dabcan ay haysatay bistoolad taasoo ammaankeeda uu furnaa iyadoo isku dayeyso in ay muuqaal soo gudbiso shilkiina saas ku dhacay sidoo kale waxaa hadda la hadlay mid ka mid ah saraakiisha CID-da wuxuu ii xaqiijiyey geerida walaasheena ilaah u naxariisto sidoo kale taliyaha wuxuu ii sheegay in baaritaan lagu wado gacantana lagu hayo shaqsigii maanta ka dambeeyay hubkaas inay gacanta walaasheena ay ku dhigto sababteedana ay noqoto in adduunka maanta ay nagu macsalaamayso nagu cidleyso dabcan xanuun aad iyo aad u dareemaa dabcan aad u xanuun badan tahay maanta dunida social media dhibaatadiisa waxaan kaa codsanayaa muuqaalkan hadduu kusoo gaaro weliba si dar alle waxaan kaaga codsanayaa walaashayna inaa usoo duceyso naxariistii janno ilaahay uu siiyo familkeeda iyo qaraabadeeda samir iimaan allah ka siiyo dhammaanteedana ilaahay naga qabto xumaanta sidoo kale waxaan kaga tacsiyinayaa saaxiibaday walaalahay familka dhammaan waxaan u rajeynayaa jannatul firdawsa sidoo kale aaladan tiktok dad badan jiro oo si qaldan u adeegsada iyo dad badan oo si wanaagsan u adeegsado dabcan dadka sida wanaagsan u adeegsado waxaa leeyahay ilaahay ajirana idinka siiyo dadka xumaanta u adeegsado waa u jeedin adduunkan joogisteeda ma ahan wax qiimo ku fadhiya ma ahan qof loo xadiday ma lahan qof waqti bay u go-an tahay ma lahan hore waxaa noogu digay sheekheena kheyr allah siiyo sheekh kenyaawi oo noogu sheekeeyey wax badan dhibaatada ay leedahay tiktoka si gaar ah hablaha waxaan rajeynaya insha allah sheekheena inaan noocdigiisa waxaa ku qaadano ilaahay dhammaanteena noo asturo walaasheenana kitaabkeeda midig allah u ka siiyo dhammaan familka samri imaan allah ka siiyo sidoo kale waxaa gacanta lagu haya oo hadda CID-da ku xiran ninkii hubka lahaa oo sababteedana lahaa sidoo kale dadka xaafada degan dhammaan dhacdadan ka argagaxay oo aad u hadalhayo dabcan waa wax qalbigeen aad u gubayo muuqaalkan waxay wacyigelin u tahay dadka isku dayaya in muuqaalo noocaas ay sameeyaan dabcan hubka ma galo wax aaminaad ah kalsoonina ma galo wax oo lagu sameeyo action waxa u digaa qof walba oo islaha dariiqaas mar ama noocaas sameey digniin ha kuu noqoto tusaalena ha kuu noqoto walaasheena ilaah u naxariisto dhammaanteena wadada sax ilaah nagu hanuuniyo waxaan rajeynayaa badqab insha allah walaasheena samar ilaah naga siiyo dabcan waxaan ka codsanaa mar kale iyo mar saddexaad muuqaal